walaalkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne Muuse Biixi oo wafdi ballaaran oo uu isagu hogaaminayo Jabuuti booqasho ku yimiday booqashadaas horta waa booqasho walaaltinimo booqasho iskaashiya iyo sidii aan hore u marin lahayn wixii milafi ama miiska noo yaala heshiisyaal hore ayaa sii jiray heshiisyaashaas ama iskaashi siyaasadeed iskaashi dhaqaale iskaashi xagga maaragtay kalluumaysiga iskaashi maaragtay imika waxaad ogaatiin sanadkan waxa reer Jabuuti ka xagaabahay Soomaaliland u xagaabahay kuma kun qof waxaad arkaysaa xiriirkii walaaltinimo xiriirkii ehelnimo aad buu u jiraayo uu xoogaystay xiriirkaas anagu haddaan nahay siyaasiyiintii inaan si adkeyno inaan maaragtay saaxad ama baaxad weyn u furno inaan de afkaar jadiidana aan raacino sidaan siyaasadan walaaltinimo darisnimo naga dhaxaysa Jabuuti iyo Soomaaliland ka dhaxaysa inay tusaale u noqoto gobolkooda taasina waxay la tahay labada hoggaan ayaa fikirkeegii qorsheynteedii wadadeedii tilmaanteeda ayaa ka haya imika shir bay ku jiraan shirkaas way ka soo bixi doonaan annaguna shir baan galnay kolka wada hadalkaas uu noo sii socon doonaa midhahoogiina kulleyba si hordhaca waad heli doontiin aad baad u mahadsan Jabuuti dhammaantiinba waan salaamaynaa aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa oo ugu faraxsanahay booqashada tanaan ku nimi oo lagu casumay madaxweynaha Jabuuti uu ku casumay madaxweynaha Soomaaliland waa booqasho shaqo in labada dal ay jaarka ah ee walaalaha ah ee wax badan ka dhaxeeyaan inay isu yimaadaan oo wada hadlaan oo arrimaha caalamka iyo iyaga danahooda iyo wixii cooperation iyo iskaashi ka dhaxeeya ay ka wada hadlaan mar walba intaas oo meena ku salaysan tahay booqashada iyadu waa booqasho dhowr maalmood ah insha Allah natiijo wanaagsan baa laga gaari doonaa